xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa ay khudbadaha hadal jeedinta ay ka dhageysteen ilaa 4 musharax u tagan qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle. xildhibaanadan ayaa waxa ay dhageysteen khudbadaha ay soo jeediyeen musharaxiintan u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle, waxaana ay ballan qaadeen haddii ay ku guuleystaan kuraasta si ay wax badan ay ka qaban doonaan deegaanada maamulka Hirshabelle. musharaxiinta afarta gaaraya ayaa waxa ay kala yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, oo sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Hirshabelle, isla markaana sheegay haddii uu ku guuleysto wax badan oo ka qaban doono dhibaatada ka jirta deegaanada maamulka Hirshabelle. Cali Guudlaawe ayaa waxaa lagu xasuustaa 4 sano ee lasoo dhaafay in uusan waxba u qaban dadka uu matalo gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxaana dadka gorfaya siyaasadda Hirshabelle ay sheegeen Cali Guudlaawe inuu yahay shakhsi daneeso isla markaana waxba u qabanaynin shacabka reer Hirshabelle. sidoo kale Cali Guudlaawe ayaa waxaa dhan kursiga madaxweynaha kula tartami doona Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo ah nin ku cusub saaxadda siyaasadda Hirshabelle, waxaana uu ballan qaaday in haddii uu ku guuleysto kursiga madaxweynaha maamulka Hirshabelle wax badan oo ka qaban doono, isla markaana uu sheegay in wax badan ay ka qaldan yihiin isla markaana uu sixi doono. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu tartamaysa ilaa 2 shakhsi, kuwaas oo kala ah gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed, oo sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi, waxaana uu sheegay haddii uu ku guuleysto xilkaasi oo wax badan oo ka qaban doono xaaladda ka jirta deegaanada maamulka Hirshabelle. balse Dabageed ayaa waxaa lagu xasuustaa intuu xilka maamulka gobolka Hiiraan uu hayay dhibaato badan ay ka tabdeen shacabka ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo isaga ka soo jeedo. sidoo kale Dabageed ayaa waxaa la tartamaya shakhsi lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Cabdulle oo ku magac dheer Maxamed Dheere, oo ah nin aan sidaas aqoon aan ugu lahayn deegaanada maamulka Hirshabelle, balse uu sheegay haddii uu ku guuleysto waxyaabaha qaldoomay uu sixi doono, balse la sugi doono beri ayaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay soo doortaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. waxaana shaki ku jirin in tartanka beri dhici doona uu ku guuleysan doonaan 2 shakhsi, balse ay u tartamayaan 4 ruux. warar hoose ay heshay Kasmaal TV ayaa xaqiijinaya in shakhsiyaadka ugu cadcad doorashada laga yaabo inay yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, balse dadka gorfaya siyaasadda Hirshabelle ayaa sheegay in 2 shakhsi haddii ay ku soo baxaan maamulka Hirshabelle 4 sano oo mugdi ay sii gali doonaan, balse kama hordhici doono doorashada natiijada maadaama ay tahay wax isrogrogaya isla markaana qarsoodi lagu soo dooranaya musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. haddaba musharaxiinta ayaa hadaladooda waxa ay u dhacday xilliga hadal jeedinta ay ka jeedinayeen baarlamaanka hortiisa. daryeelka iyo hooyada iyo dhallaanka, helidda caafimaadka aasaasiga oo lacag la'aan ah, shaqo iyo xirfad abuurid jiilka da'daya, ka hortagga masiibooyinka gaar ahaan fatahaadaha iyo yaraanta iyo abaaraha, iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha jidadka isku xidha degmooyinka dowladda Hirshabelle dhexdooda iyo kuwa gudaha magaalooyinka ah, sida dekado iyo eerboorro casri ah si wax kordhinta soo dejinta iyo socdaalka u fududaadaan. waxa annaga aan samaynayno waa sharcigii fududayn lahaa arrimahaasi in la sameeyo hawsha gulidda iskale oo aan ku kontroleyna dadejinta maamulka iyo dhisada dowladaha hoose. maamulka haduu wuxuu ku yahay magaalooyinka ama gobolada u weynaya, markaa fiirisa dhinaca xeebta Hirshabelle oo dhan degmooyinka ku yaallo iyo magaalooyinka ku yaallo waxaa weeye adeeg kasta lagama helo. markaa fiirisa dhinaca galbeedka ama qoraxsinka sidaas oo kale waxaa maraysaa laamiga dheer ee